الحمد لله حق حمده وصلاة الله وسلامه على خير خلقه وعلى آله وأصحابه والتابعين من بعده. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أن أقدامكم على النار لا تقوى. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. ولا ليال khudbadeenu maanta waxay ku saabsanayd ama ku saabsan tahay sharaxa hal xadiis oo kamid ah xadiista nabigeena kaleey salaatu wasalaam ka sugan kaasoo ay ku tilmaameen culimadu inuu yahay mid kamid ah xadiista ugu koobida badan mabaadida iyo qiyamka iyo qawaacida iyo aadaabta islaamka ee qofkii ku dhaqmaa oo adduunka iyo aakhiraba liibaanayo. midhaha iyo fawaa'ida iyo thamaraadka nabigu calayhi salaatu wasalaam uu dul surayna acmaasha xadiidka ku jirta ay tahay mid qofku uu goosanayo intuu adduunkan ku nool yahay iyo markuu aakhira taga labadaba. xadiidkaas imaam muslim baa wariyey, ahlu sunankuna waa soo saareen. abu hurayra ayaa nabiga ka warinay calayhi salaatu wasalaam. xadiidku wuxuu ka kooban yahay 7 faqro. faqro waliba ama jumlo waliba qayb waliba iskeed ayay u tahay muxaadaro kaligeed waxa weeye kutub laga qori lahaa, laakiin waynu soo koobaynaa si kooban baynu isu dul taagtaageynaa. faqrada ugu horeysa nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قفكي كفيدة قف مسلمة كربة داسو كميدة كربوينك الدنيا ده كربوينك الدنيا ده مد كميدة قفكي قف مسلمة كفيدة إلهي سبحانه وتعالى وحو كفيدة كربة كميدة كربوينك آخر. kurbooyinka iyo walwalka iyo walbahaarka qofka la soo gudboonaanaya adduunka ay kamid tahay qofkii in dayn lagu yeesho, ay kamid tahay inuu dulmi dul saaran yahay, ay kamid tahay inay dani ka xidhan tahay. wax uun qofka mu'minka hammi iyo walwal iyo walbahaar iyo murugo ku haya qofkii ka dulqaada, dayn uu ka bixiyay ama ka cafiyay ha ahaato, dan uu guday ha ahaato, ظلمي iyo dhibaato dul saarayda uu ka dulqaaday ha ahaato, ilaahay subxaanahu wa ta'ala kurbooyinka aakhira yaala ayuu isagana ka fayda. oo maxaad ka haynu ku ognahay kurbooyinka aakhira yaala? kurbada adduunku waa dhamaataa, waqtigeedu waa kooban yahay, markeedaba horana marka ta aakhira la barbar dhigo waxbaba ma aha. haddana adduunyada waxa laga yaabaa cid uun kugu kaalmayso oo ka saaciday inaad hesho. aakhira kurbadeedu ma dhamaato oo wax sahlan oo la aqbali karo la xamili karo ma aha, oo wax ku gacan kaas iyo heli maysid. kurbooyinka halkaa yaala, kurbadaas marida jiska siraad la marayo, kurbada marka acmaasha la miisaamayo, kurbada marka kutubta la qayminayo qofna midigta ka qaadanayo qofna bidixda ka qaadanayo, kurbada marka dadkii la kala jabaan qaarna naar aadaan qaarna janno aadaan. kurbooyinka halkaa yaala ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala qofkaas isagana ka faydaya. bal hadda fiiri waxa qofkani bixiyay iyo waxa uu qaatay, waa bay'un raabih. waxa uu bixiyay waxa uu helayo in badan waxa uu helayo. faqrada labaad nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sheegay: waman satara musliman satarahu allahu fi dunya wal aakhirah. qofkii qof muslima astura, qof muslima ceebtiisa qofkii astura, maxaa la asturayaa? siyaabo kala duwan baa asturku noqon karaa. ceeb aad ku og tahay qofkaas oo aad ku daalacato oo ku ogaatay inaad u qariso oo u asturto oo aadan sheegin oo fidinin oo faafinin, waa astur. cawradiisa inaad u asturto oo labis iyo radbeel siisa waa astur.
baahidiisii iyo xaajadiisii inaad asturto oo aad ka kaafido inuu dad hor istaago oo wax weydiisto oo baryo tomo inaad ka kaafida waa astur qofkii qof muslima asturaa waxa weeye ilaahay baa subxaanahu wa tacaala isagana ceebihiisa qariyo oo astura intaad u asturtay waxaad ka ogtahay ceebaha bini aadamka adigu aad ka ogtahay aad qarin kartaa wayba iska kooban yihiin laakiin ilaahay ceebahaagu dhan buu ogyahay soo ma ceebahaaga oo dhan allaha og ayaa ilaahay ayaa ku asturaya oo ku qarinaya ceebahaaga noocay tahayba soo maaragtid ilaa iyo culimadu ay soo gaarsiiyeen qof khamri cabaya haddaad aragto ama zinaysanaya waajib kuguma aha inaad qaadiga u tagto oo aad dacwaysaa waajib kuguma aha allaahumma qof munkarkaas la caanbaxay oo waxa weeye bannaanka la yimi oo ummadda dhexdeedii ku samaynaya oo munkarka in la zuuliyaa ay ku xidhan tahay arrintaa mooyaane waa inaad u naseexayso asturtaa laakiin meel walba haddaad kaga sheekayso xumaantiina maad zuulin dembigaad aragtayna maad zuulin dembigii lamida unbaad adiguna sii samaysa marka kuu sameeyey iyo ka adigu samaysay ma kala dhacaan labaduba waa laba shay oo ilaahay lagaga fogaanayo oo cadaab lagu mutaysanayo weeyaan arrinka saddexaad faqrada saddexaad nabigu wuxuu calayhi salaatu wassalaam waman yassara calaa mucsirin qofka u fududeeya oo ka fududeeya qof dayni cuslaysay qofkii ay dayni cuslaysay ee iska bixin kari waayay qofkii ka fududeeya ilaahay baa isagana yassarahu Allahu calayhi fi dunya wal aakhirah ilaahay baa arrimihiisa iyo umuurihiisa oo dhanba u fududeeya aakhira iyo adduunba kuwa adduunyada iyo kuwa aakhiraba ilaahay baa u fududeeya fududeynta aad u fududeynaysaa waa sidee مثلا hadduu yahay qofkii deyntaba ku lahaa kow inuu ka cafiyo ama qayb ka mida ka cafiyo ama uu ka sugo waxa ugu yar bay yidhaahdeen xusnul mutaalaba waxa ugu sahlan bay yidhaahdeen marka ay noqoto inaad ka dalbato si wanaagsan inaad u weydiisato oo asturan oo aadan ku qaylqaylin oo masaajidka ku qabsan oo kalarka laacin aad si sahlan oo qarsoon oo cid kale aan idin arkaynin oo usluub iyo aadaab ku dheehan tahay aad u weydiisato haddii kalena de waxaba waajiba intuu waxeelaya inaad ka sugto masaladaasi waa mas'ala aad iyo aad dadkeenu ay ugu dhibaataysan yihiin nabiga calayhi salaatu wassalaam wuxuu ka sheekeeyey aakhara waxa la keenayaa nin markaasaa ilaahay wuxuu ku odhanayaa weligaa khayr ma samaysay hal camilta khayran qad weligaa wax khayra ma samaysay su'aashaas la weydiinaya markaasuu odhanaya maya weligay wax khayra ma samayn ma tukan zaka ma bixin ma soomin wax khayruhu aan sameeyay ilaahay ma xasuusto markaasaa lagu bal xasuuso markaasuu odhanaya waxaan samayn jiray oo aan xasuusnahay nin maalqabeena baan ahaa dadkaan xoolo daymin jiray shaqaalaha markaan dire aan idhaahdo deynta soo ururiya waxaan ku odhan jiray war qofkii wax haystana ka suga intuu bixinayo wax heli kara qofkan waxba haysana ka cafiyo oo ka saamaxa ayaan odhan jiray qofkan waxba haysana ka saamaxa kii xataa heli kara bixin karana ha soo taxaabinaya ka suga intuu soo diyaarinayo taasaan odhan jiray markaasaa ilaahay wuxuu ku odhanayaa aniga ayaa kaa mudan haddaad adigoo addoommahayga cafiyi jirtay anigoo rabbul caalamiin ayaa kaa mudan inaan addoommahayga cafiyo waan ku cafiyay oro jannada gal sidaasaa lagu kaxaynaya jannada lagu geynaya wuxuu ninka weligii khayr ma samayn deynta ayuu dadka ka sugi jiray qofkii waxba waayana uu ka cafi jiray وآيات قرآن وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة إلى سبحانه وتعالى هدو قف كاسي هاي قف دينتي آن اسكبحين كريني أو فقيرة أو مسلفي أو كعي قف دينتي كله وحواجب كاينو كسوه ما هصني وحواجب كاينو كسوه انتو حلي فنظرة إلى ميسرة علماء waxay yiraahdaan waxa jira arimo sunna ah oo waajib ka fadli badan arrimaha sunnaha ah ee waajibka ka fadliga badan waxa kamida mas'alada tan qofka deyn ku leedahay
dayntii inaad ka sugtaa hadduusan bixin karin waa waajib inaad ka cafido ka saamaxdaana waa maxay waa sunne cidina waajib kaaga dhigi mayso xoolahaagii daynta aad hebel ku lahayd khasab ku cafi sharcigu ku odhan maayo laakiin khasab ku sug buu ku odhanaya intuu helayo dad waxaad arkaysaa qof faqiira oo waxba haysan oo dayn lagu yeeshay xidhaya oo dhibaataynaya oo jeelka geynaya oo ashkataynaya waa xaaraan xataa inaad weydiisaa waa xaaraan iska daa inaad xabsiga geyso oo aad tiraahdo dayn baan ku leeyahay haysiiyo inaad tiraahdo inaad xataa weydiisaa xaaraana ilaahay uu ka soo helayo haddii uu qofkaasi wax haysto isagu mumaadalo samaynayo waa mas'alo kale qofkii qaniga meermeerintiisu waa dulmi buu nabigu calayhi salaatu wasalaam waa mas'alo kale taas marka qofkaasi muxuu helayaa qofkii deynta uu ku lahaa ama yuusan ku lahaana waa mid kale oo deyntii lagu lahaa buu ka bixiyey ama xataa kii deynta ku lahaa ayuu kala hadlay oo yidhi war qofkaas deyn baad ku leedahay waxse heli kari maayo ka sug xadiidkan uu soo gelaya isagana muxuu helayaa yassara allahu calayhi fi dunya wal aakhirah ilaahay arrimihiisa iyo umuurihiisa oo dhan baa ilaahay u sahlay hadda adduunka kaliya ma deyntani aad qofka ka bixisay ama ka saamaxday adduunkuun bay ahayd abaalka aad helaysaa waxa weeye arrimahaaga oo dhan baa ilaahay fududaynaya kuwa adduunka iyo kuwa aakhiraba ilaahay uu ku fududaynaya faqrada أفراد نبي عليه الصلاة والسلام وحيد والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه وقاعدة كلية أو حصول نسوق ذجليان أنت أضونك كلاء ولالكية وكالمين تيس يمساعدين تيس كل حجرو إلهي بايسنا وكالمينية ماذا ماشى كترتا والله في عون العبد ما كان العبد وحل إلى هذا ظرفية مصدرية ظرفية يعني إنك مدة أتكوها ولنتها ولالك إن هذا عاوسو أذينا إلهي وحو كشقين يا عاونت هذا هذا أضم بطاي ضعيف وهو واحد سمي سابق كوبي هاي واحد أكتها بيسكيري هاي واحد كرتها بيسكيري هاي رب العالمين آيات هذه كم مغن أنت تولالك كم مغن تاي رب العالمين بعدي كانت هذه كم مغن دراسات فربضن oo la sameeyay oo gaaliya muslim bale waxay isku raaceen qofka dadka ugu farxadda badani inuu yahay dadka qofka u kaalmeynta badan markasta oo aad qofka u kaalmayso dadka u kaalmayso oo dadka caawiso oo dadka ka farxiso adiguna waxaad noqonaysaa qofka dadka u farxadda badan iyagu hadday daraasad iyo tajaarubtay ku ogaadeen laakiin inagu waxyi baynu ku ogaanay 1400 sano ka hor ayaa ilaahay waxyigeena quraanka akhri wama anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu fa'fu wasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum sawmarakt nabi alayhi salatu wasalam irhamu turhamu waghfiru yaghfiru Allahu lakum سومارت والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه يعني نصوص فربضن با waxay noo cadeynaysaa qofku waxa uu bixiyo ee dadka siiyo ayaa isagana ilaahay siiya waxa uu bixiyo ayuu isaguna helayaa hadaad farxad bixiso oo sacaado bixiso oo dadka ka farxiso oo dadka caawiso taamil lamid adigana ilaahay xaqiisa kaaga imanaysa الله وين غني قادر كا وحبا ku cuslayn ayaa isagana farajkiisa adigana farajkiisa ku furaya faqrada shanaad nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu yiri man salaka qofka qaada tariiqan yaltamisu fihi ilman sahala Allah lahu bihi tariiqan ila aljanna qofka qaada tariiq uu ilmi ku raadinayo ama sameeyo shaqo uu ilmi ku raadinayo ilaahay wuxuu maritaanka dariiqa uu maray sababtiisa wuxuu ugu fududeeyaa wadadii jannada geynaysi maxaa yeelay ilmigu waa ka ilaahay ku baraya waa ka waxa ilaahay jecel yahay iyo waxa ilaahay neceb yahay ku kala baraya waa ka xaraan iyo xalaal ku kala baraya waa ka saadi ilaahay caabudu ilaahay ku baraya waa ka wadadii jannada ku tilmaamaya saad u raacdo wadadii naartana ku tilmaamaya saad uga weecato ilaahay wuxuu ilmiga qofkii barta culimadu waxay dhahdeen suluuga
طريقا لقاضية حسنا ونقون كرا معنونا ونقون كرا حسي ونقون كرا يو قف كينو لغاية أو صعدو سيو قادو ماشي علمي ويالي ويسوق ليسا وحكلا سوق ليسا قف كينو لي مادو وحيابه علمي كو حسليني سيدا ينو وح قرو وح أخريو وح مطالعيستو إلى آخره علماء الله فرد علماء وحي هذين من سلك طريقا يلتمس فيه علما سي إمام النووي كشيء في شرح مسلم وحلي وحا سوغليا حتى dadka wacdiga iyo khudbadaha jimcaha soo doonanaya qofka saaka gurigiisa ka soo dahaara qaatay ee masaajidka yimi si uu khudbadan iyo wacdigan u dhageysto salaka tariiqan yaltamisu fihi ilman wuxuu soo qaaday tariiq oo cilmi ku dalbay ayuu soo qaaday ila cilmi baa loo sheegay khudbadu waa cilmi ahadiisi nabiga aayaadka quraanka ahba yaa la isku dul akhrinaya wuu soo galayaa buu yiri xadiidkan bay soo galayaan dadka caamada ah ee mujtamaca khudbada soo aadaya xadiidkan bay soo galayaan wuxuu yiri waxa kale oo soo galaya hadaad lugayso oo nin sheekh oo mufti oo meel jooga aad damacdo inaad su'aal soo weydiiso hal su'aal istiftaa inaad su'aasha soo weydiiso shariicadu sheekha mas'alada maxay ka qabtaa cibaadad ku jirta wadadii jannada ayaad haysaa faqrada lixaad nabiga alayhi salatu wasalaam wuxuu yiri majtamaca قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده انت صدب على سودر قولوا ما فريسة قريها إلهي كمده guriyaha alla kamid waa masaajidi madaaristiina waa soo guda galaysa iyagoo kitaabka ilaahay akhrinaya isu akhrinaya oo isu daraasaynaya ama alfaadiisi bay isbarayaan ama macnihiisi bay isbarayaan tafsiir bay isu akhrinayaan malaa'ikta ayaa isku hareeraysa naxariis ayaa ku soo degta dumaaniina iyo xasilooni ayaa ilaahay subxaanahu wa ta'ala ku soo dejiya ilaahayna wuxuu ka xusaa malaa'ikta agtooda ayaa ilaahay ka xusaa ilaahay baa halka ku soo qaada malaa'ikta sharafta badan ee Allah subhanahu wa ta'ala agta ku sugan ayaa ilaahay agtooda ku soo qaada oo ku sheega oo ku amaana oo ku maamuusa taasina waxa ku tusinaysaa inuu ilaahay raali ka yahay sheegida ilaahay uu sheegaya maxay tusinaysaa ilaahay inuu raali ka yahay bay tusinaysaa wuxuu nabigu ku soo khatimay alayhi salatu wassalaam waman batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu bal qaa'idada fiiri nabigu alayhi salatu wassalaam waxa la siiyay jawaami'ul kalim hadal kooban oo hadana macnihi aan waxba ka tagay war qofka nasab amalkiisu uu dib u dhigo qabiilkiisa iyo nasabkiisu horay uma mariyo qofka amalkiisu laangaab ka dhigo qabiilkiisu laandheere ka dhigi maayo qofka amalkiisu gumeeyo dadku amalka ayay ama gun ku yihiin ama gob ku yihiin binas alquran inna akramakum inda allahi atqakum qofkii iimaan iyo amal saalix laga helaa waa gob qofkii labada laga waayana waa gun qofkii amalkiisu gumeeya reerku ka dhashay iyo aabayaashii iyo awowyadii iyo qabiilkiisu meelahay degaan iyo intay tire leeg yihiin wax ay u soo kordhinaysaa ma jirto marka meesha aad xooga saartaan oo iska dhistaan oo macna iyo qiimo ku yeelanaysaan waa amalka ilaahay amal baa loogu dhawaada ilaahay nasab cidina lama wadaagto soo samoogidin ilaahay nasab cidina lama wadaagto adoomihi soo dhalina ala masaafa waahida ay u wada jiraan waxay ugu soo kala dhawaadaan waxaad shaqaysato ilaahay saad ugu dhawaato saad u raali geliso saad u caabudo saad xuduuda u dhigay oo ilaaliso ayaad ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu dhawdahay الله صلوا وسلموا على البشير النذير السراج المنير خير من صلى وصام ونصح الأنام اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك
وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على نبينا محمد وأقم الصلاة.